iyadoo ciidamo ka tirsan dowladda federaalk Soomaaliya weli lagu daabulayo magaalada Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose isla markaana la doonayo in howlgallo ay ka sameeyaan deegaano ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta maxkamadda gobolka Banaadir waxa ay soo saartay warqad soo qabasho ah oo ku socotay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe kadib markii golaha wasiirada ee xukuumadda federaalk Soomaaliya xeelaalinta qaranka ay fareen in garsoorka la horgeeyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo dhawaan doorashadiisa ay ka dhacday magaalada Kismaayo ee dowlad goboleedka Jubbaland waxaana warqadan ku xusan in Axmed Madoobe uu jibiyay shuruucda qaranka isla markaana uu khiyaano qaran sameeyay sida ku xusan warqadan ka soo baxday maxkamadda gobolka Banaadir. Wararka aynu ka helayno magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in sidoo kale Axmed Madoobe isna uu abaabul ciidan uu ka wado deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo oo xilligan fariisanka u ah dowladda federaalk Soomaaliya ayaa cadaadis aad u xoogan saaraysa madaxweynaha dhawaan doorashadiisa ay ka dhacday Kismaayo ee Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe isla markaana sida aadka kaga soo horjeeda dowladda federaalk Soomaaliya iyo shirkii madasha wadatashiga qaran ee isaga baxay isla markaana lagu go'aamiyay in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah isla markaana shacabku ay ku soo doortaan qofka iyaga ay doonayaan. Hadalheynta ugu badan guud ahaan dalkeena Soomaaliya ayaa muddooyinkii aynu soo dhaafnay ahayd arrinta cakiran ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo dowladda federaalk Soomaaliya. Dowladda federaalk Soomaaliya ayaa sidoo kale qorsheynaysa in guud ahaan ay la wareegto deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland ee xilligan ay ku sug yihiin ciidamada ka amar qaata madaxweynaha dhawaan la doortay ee Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyadoona sidoo kale ciidamo ka dejisay magaalooyinka Garbaharey iyo Dooble oo hore ay kaga sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka Jubbaland. Ciidamada Haramcad iyo Gorgor ayaa dhowrkii cisho ayna soo dhaafin lagu daabulayay magaalooyin ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland kuwaas oo qorshuhu yahay in ay gaaraan Kismaayo isla markaana gacanta ay ku soo dhagaan madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo maxkamaddu iyo xeelaalintu ay ku soo eedeeyeen inuu sameeyay khiyaano qaran. Waxaana sidoo kale jirta in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk Soomaaliya ay xilligan buuq ay ka dhex wadaan golaha shacabka isla markaana ay doonayaan inay garab siiyaan madaxweynaha isdoortay ee Axmed Madoobe. Siyaasiyiinta oo doorastaha arrimaha siyaasadda ee ku sugan gudaha dalkeena Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in dowladda federaalk Soomaaliya suurtagal ay tahay inay ku guuleysato soo qabashada Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Waxaana sidoo kale la tilmaamay in dowladda federaalk Soomaaliya xilligan ay wado qorshe ku aadan in dowlad goboleedka Jubbaland ay doorasho kale ay u qabato. Waxaana sidoo kale ujeedada laga leeyahay tahay in Axmed Madoobe uu tanaasul uu sameeyo isla markaana u hoggaansamo shuruucda dalka. Ciidamo ka tirsan maamulka Jubbaland oo doonyo ku gaaray magaalada Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose ayaa lagu soo waramayaa in saacadihii aynu soo dhaafnay ay isu soo dhiibayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan magaaladaasi. Waxaa aad u muuqata in fashil uu ku soo dhammaan karo doorashadii uu isdoortay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe.